بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan rabaa inaan dhowr minute aan ka yardhiibto arrin dhowaan ka dhacday gobolkan adu Mareykanka nin caan oo dhalinyaro oo muxuu aad loo yaqaan oo la yiraahdo Newman Ali Khan arrintaas oo aniga maqalkaygu igu cusbaa oo weygii dhowtoolaan maqlay oon aad iyo aadna aan uga naxay qof muxuu ahaa dhalinyartu ay jecel yihiin iyo dadka waawaniba oo muxuu ahaa arrin intaa in laga soo food saartay marka waxaan rabay inaan muxuu ahaa arrin aan ka dhiibto maxaan ku raad analysis ka yar sameeyo saddex wax ugu horeysa aan african ka dhibanaya ma ahin inaan la qofkan waa dambiile aan dambiile ma ahin taas shaqadeeda ma ahin waxa uu taala gobolkaas ay ka dhacday iyo dadkii gacanta ku dhigay arrintaasi ayay u taala waxa laga yaabaa shaqadiina inay sameeyeen laakiin nasiib darro anaga waxayna soo gaadhay waqti dambe aan weekend baan maqlay arrintana waxay dhacday sanad ka hor ayay dhacday marka intaas oo dhan dadku meel maqal badankoodu aan ka mid ahay video tole markii soo baxday marka taasi oo taala wixii ku saabsan in qofka ay leeyihiin dambiile weeyaan amba maahin marka taasi waxaan rabaa inaan ka shaafiyo dadka maahin inaan dambigaan saarayo amba aan ka qaadayo taasi waxa u taala dadkii arrintaasi marxaatu hay meesha taagnaa mid wataa weey talabaad aan rabo inaan cadeeyo waxa weeyaan dadka Facebook iyo social media in badan baa la isku daarsaday intaan akhriyay waxa u badankoodu reaction shucuur leh ayay sameeyeen waxaan ahayn xabad iyo dhif muxuu ahaa si dheeli tiran arrintan uga jawaabay ay aan soo qaadanayo tay ka mid tahay Faisal Quti uu muxuu ahaa jawaabtiisa أنا أدو جعلستي أو هاي من ديري ترى وليه محام كل هذا وين اللي جيست عدك ضدك محام كل هذا وحلو جيست هدي شفتو ضدك وين اللي جيست مكان وحو حكا أفر عد كضدك محام حلو السمية لا بوحمل لو السمية إن أنا لورن بين بشيء يعني نفتي أنا اللي جيست يو قف كان كلا السجن ده بيقولوا شيء يعني إن محوها يحسي العدل مركز سيد ديري ترى ayuu uga hadlay qofkaas inkaas maxamed rado Faisal Quti laakiin dadka kale badankooda waan arkay dad isaga maxaan ku daafacaya oo marka qaarkood uu si indhaliyo daafacaya ayay hayeen oo qaarkood ay ku leeyihiin kii ugu dambeeyay maanta dhigaystay oo lahaa ninkan asxaabtiisu wada salaafiyiin weeyaan marka haddii salaafiyuunka ay ku arkaan soo gabar salaamaya waxay u micnanayaan markiiba inuu yahay qof dambi weyn basamay marka halka wuxuu ka wadaa محمد هدي اللي هي واحد وين بيسميه وقبلها وكسميه وده السلافين حتى السلامة وحاجة سوق قاضي أيوري مركا أرجمد وحاجة مركا قاركود ضعيف ومركا قاركود مالك قد عيم محمد هذا مسكح بالآن كان مركا لكن أنا واحد هذا بقى محمد هذا عندك وراي كل رجلنا إياه إن محوها هرنتان ارتمرك وهو رئيس قفك دينها وحال هذا ود بدب بملها إلى ما يحلو عديه dad baan gudi loo xilsaaray arrintan galay sida arrintan ugu soo gaadhay dadkaas marka khoseysa laakiin anagu ma leeyihiin muxuu ninka waa dambiile ama dambi ma laha talabadan kale waxa weeyaan dadka reaction kooda waa more emotions marka wax ka mid ah emotionka asadan soo qaado aro qofku yani waxa Chris ku sameeya uu caranayo uu leeyahay si aad nactan dadka soo horjeeda ama qof kale oo isaga maxaan ku raada dambiga ku qaaday marka شعور فربدن باجيرا مانتا ان سوشيال ميديا waxaan dadka walaalahay ku dhirgelinaya marka dhageystaan inay u dhageystaan si maxaan ku raada dheelistiran oo reaction koobuna noqon mid emotional takxal oo ina waxa weeyaan qofku inuu aqbalo in maxaan ku raada marxaladda dhacday in qofka wax lagu sheegi karo xitaa hadduu sameeyay iyo hadduu sameeyay aqbalaadu kama dhigna waxa dhacay baan rumeysanahay amba kama dhigna raliban ka ah ee waxa weey qofka uu ogolow hadduu shaki garo inuu shakiyi karo marka tasaddaxaad kale waa 10 inaga maanta inoo yahay as a muslim arrintan 10 bal iyo u noqon ay rajeen noqoto community muslimiinta iyo nimanka musheekhda amba aanka aad loo jecelaystay loo dhageystay muslimiinta community 10 oo yahay waxa weeyaan qofka ay jecel yihiin haddii baritool wax lagu sheego amba lagu masabido amba lagu masabidin aad ugu xumaanaya xumaantaas marka qaarkood waxay gaadhaa sida markii hore aan soo sheegay xadaaf shucuur ayay gaadhayo oo nacab tahay qofka waxa ku sheegaya marka
cashar community waxa weeyaan bila aadamku marka ugu horeysa waa bila aadam qalad uu sameyn karaa xitaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam qalad uu sameyn karaa wuuna sameeyey laakiin difference-ka nabiga u dhaxeeya inaga waxa weeye nabigu markuu qaldamo waxaa saxayay oo uu ahaa ilaahay baa uu ahaa maxaan ku rahdaa hagi jiray oo dariiq hagi soo jiray laakiin inaga maxayna hagaya waxayna hagaya maxaan ku rahdaa sunnaha nabiga iyo sunnihii ilaahay sunnaha nabiga oo maxaan ku rahdaa camalkiisii wuxuu sameeyey iyo waxaan ka aragnay iyo sunnaha ilaahay oo qur-aanka qur-aanku markaasi waa kitaabkuna waxa weeyaan kitaabkan aan naqaanay dee muxuu ahaa la akhristo iyo kitaab kala jira oo la yiraahdo kitaabka adduunka khibrad marka ilaahay halkan adduunkan wuxuu keenay dad khibrad wax u leh dadkaasi iyo uu fudeeyay baa jira marka in wixii laga hadlo si maxaan ku rahdaa cilmiyeysan oo laakiin shucuurtan soo maxaan ku rahdaa markii dadka soo horeysa in la iska yardeeyo in la qofkan uu qaldan yahay ama maqladama marka waxaan walaalaha ku soo dhiirigelinayaa arrintaasi waa arrin aad iyo aad farxum waxaan rajeynayaa inankaasina haddii maxaan ku rahdaa wax qalad lagu sameeyey oo lagu musabaday ilaahay maxaan ku rahdaa ha uu gargaaro haddii maxaan ku rahdaa waxaan uu sameeyeyna ilaahay si khayr qaba maxaan ku rahdaa arrintaasi ha ugu badbaadiyo oo markaa waan u duceynayaa labadaas ninka wax lagu sheegayo iyo dadka kale dhibaatada sheeganaya markaasi wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh